وهاجاك دعوضيال waxaynu ku gada jirnaa gabagabadii Abshir iyo America oo inoo soo bilaabmay saacadu markay heeshantii galabnimo waqtiga Minnesota oo si toos ah uga daawanayseen telefishinka STN daawadayaal saad la wada socoteen waxa sanadkii cusbaa bandhig fanaad ku dhigay gobolka Minnesota fanaanada Nasteexo Indo hadaba shacabka ku nool gobolka Minnesota ayaa waxay isla dhexmarayaan inuu khilaaf u dhaxeeyo fanaanada Nasteexo Indo iyo fanaanada kale Hodan Cabdiraxmaan hadaba saan ugu kuurgalno arinka isaga ayaa wariyahayaga Cawaale Cabdullaahi wuxuu la kulmay Hodan Cabdiraxmaan isaga oo weydiiyay su'aalaha kala ah inay wada kulmeen fanaanada Nasteexo Indo Hodan Cabdiraxmaan iyo inuu jiray wax khilaaf ah hortaan ku salaamaya Cawaale adiga iyo dhamaan inta TV-ga iyo shaqaalaha inteeda la shaqeysa dhamaan ummadda Soomaaliyeed dhamaan waan salaamaya markaan salaanta ka gudbo Cawaale su'aashadii weydiisan kaaga jawaabaya Nasteexo Indo waa gabadh fanaanada oo walaashay ah oo wadanka marti ku ahayd markii ugu horeysay timidayna ma ahayn dhowr jeer bay noo timiday dhowrkii jeer hore waan isaragnay laakiin tariibkii hadda ay timiday ismaano arag mana ahayn inaan wax ku kala maqanahay ama de sida Facebook-yada internet-yada ka aragteen inay waxna dhex yaaleen just kaliya waxay ahayd aragwaagayaga waxa ay ahayd hawlo nagu wada furnaa iyadoo xaflad magaalada ku qabanaysay iyadoo fanaaniin magaalada degan aniga iyo wiil kale martino ahaa walaalkii Cabdiholan oo anaguna xaflad kala wadnay siyaasadda waa lagu tartamaa fankuna waa sidoo kale wax xifaaltana iyo xumaan na dhaxtaalay fanaaniintaas ma jirin waan jeclaa inaan fanaanada saragno walaashaya aniga oo hawlo igu furnaayeen iyadoo hawlo ku furnaayeen mooyaane waxna dhex yaalay wallahi oo khilaafa ma jirin waxna dhex ooli karana ma jirto waa gabadh fankan ku jiray wala jirta waa gabadh fanaanada Cawaalow waxa balaayo kaga dhacday ummadii Soomaaliyeed miidiyaha aad waxaad u jeceshiin wax buunbuunisaan dagaal ay jirin inaad oogtaan oo tiraadaan dagaal baa jira wax dagaal oo fanaaniinta dhex yaala ma jirto annaga ummadda iska xigna annaga dadka iska xigna annaga isku baha sida aad wariyaashu aad isku baha u tihiin sportsku isku baha u yahay dad walba bah u leeyihiin barnaguna bahda fanaaniintoona waan ku salaamayaa classmate-kayga hore وهاجاك دعوضيال waxa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni Abshir iyo America oo inoo soo tagnaa tan iyo shantii galabnimo waqtiga Minnesota intaynu dib u kulmi doono waxaanu kaga taganaa sidaas iyo nabad geliyo